kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka siraha milatariga. barnaamijkan oo aad horey uga daawan jirteen shabakada warqaha TV ayaan hadda dib ugu soo celinay sabab la xiriira dalabyo inooga yimid daawadayaasheena ku xiran shabakadaha warqaha qaybta YouTube-ka iyo sidoo kale Facebook. barnaamijkan ayaa taxana ka dhigi doona bisha barakeysan ee Ramadaanka insha Allah. waxaan ku soo gudbin doonaa awoodaha dalalka adduunka, heerarkooda ciidan, xulafada ay haystaan, dalalka ay hayaan iyo xogta ee dalkaas oo dhameystiran. barnaamijka intiisa badan waxaan diraddan ku saari doonaa inaan dhex geyno xogaha rasmiga ee awoodaha military ee dawladaha iyo hay'adaha oo ay ku jiraan isbahaysyada ciidan ee dunida ka jira. waxaana barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa haddii eebaweynaha inoo saamaxo awoodda ciidan ee dalka Afrika ku yaala ee bilaabay inuu samaysto diyaaradaha dagaal waana dalka Algeria waxaa saaran cunaqabatayn uga timid reer galbeedka, laakiin waxaa garab weyn siinaya Turkiga. haddaba maxaad kala socotaa awoodda ciidan ee dalkan muslimka ah yaa ay xulafo yihiin, waa kuwa cadowgooda ugu weyn, maxaana Algeria loo saaray cunaqabataynta dhinaca hubka? xogahaas oo faahfaahsan ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena siraha milatariga ee maanta. laakiin marka hore waxaan ku bilaabi doonaa in aan sharaxaad kooban idinka siiyo dalkan. jamhuuriyadda dadweynaha Algeria waa dal madax bannaan oo dhaca waqooyiga qaaradda Afrika, caasimadiisana waa Algiers oo ah magaalada ugu dadka badan. dalka Algeria ayaa ku fadhiya dhul baaxadiisu tahay 2,381,741 kilomitir oo iskuweer oo u dhigata 919,595 mayl. Algeria waa dalka sagaalaad ee ugu ballaaran adduunka. dalka dhaca waqooyiga Afrika dadkiisa waxaa lagu qiyaasaa 44 milyan, waana dalka sagaalaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika. dalka Algeria waxa uu xuduud la leeyahay Tunisia oo dhinaca waqooyi bari ka xigta, Liibiya oo koonfur bari ka xigta, iyo dhinaca waqooyi oo ay kaga beegan tahay badda Mediterranean-ka. waddanka waa jamhuuriyad ka kooban 48 gobol iyo ismaamulo yaryar, waxaana dhaqaale ahaan uu ku tiirsan yahay wax soo saarkooda saliidda. dalkan waxa uu qayb ka yahay dalalka soo saara shidaalka ee OPEC la yiraahdo. dalkan wuxuu ka mid yahay wadamada ku horeeya dhinaca teknolojiyadda qaaraddan Afrika, wuxuuna maalgeliyay qiyaastii 100 bilyan oo diinaar oo ku aadan horumarinta goobaha cilmi baarista iyo bixinta cilmi baarayaasha barnaamijyada horumarinta. waxaana loola jeedaa in lagu horumariyo wax soo saarka tamarta, gaar ahaan tamarta qoraxda iyo dabaysha. Algeria waxaa lagu qiyaasaa inay leedahay awoodaha ugu weyn ee tamarta qaaradda ee badda Mediterranean-ka. Algeria ayaa xubin ka ah ururka midowga Afrika, qaramada midoobay iyo sidoo kale jaamacadda Carabta. dalka Algeria waxaa madaxweyne ka ah Abdelmajid Tebboune oo ahaa madaxweynihii 8aad ee waddanka, wuxuuna xafiiska la wareegay sanadkii 2019 markii uu iscasilay madaxweynihii waqtigiisa dheeraa ee talada dalka haya ee Cabdilcasiis Bouteflika oo kacdoon shacab ay ku rideen dadka waddankaasi Algeria. dadka Algeria 99% waa dad muslima oo sunniyiin ah, waxaana dalka lagu maamulaa dastuur ay asaas u tahay diinta Islaamka. haddaba hadda aan u gudubno awoodaha ciidan ee waddanka. dalka Algeria ayaa ku soo baxay kaalinta 27aad ee qiimeynta wargeyska ka faalooda awoodaha military ee dalalka caalamka ee Global Firepower, oo markaasi ku sameeyo 140 wadan oo la isbarbar dhigay cududooda military ee sanadkan 2021. waxaana Algeria ay ku jirtaa kaalinta 27aad. wargeyskan Global Firepower oo sidoo kale si sanadla ah qiimeyn ugu sameeya isbarbardhigga quwadaha military ee dalalka caalamka iyo horumarada dhinacyada ciidamada iyo hubka ay ka sameeyaan dalalka adduunka, ayaa waxa uu warbixintiisa ku bilaabay inta ay gaarsiisan tahay shacabka ama uu gaarsiisan yahay shacabka waddankaasi Algeria. mujtamaca guud ee dalkan Algeria ayaa lagu qiyaasaa 42,972,000 oo ruux. wargeyskan ayaa waxa uu xusay in Algeria ay heli karto dad ka badan 20 milyan kuwaasoo diyaar u noqon kara inay ka mid noqdaan askarta waddanka. sidoo kale dadka ka mid noqon kara ciidamada hadda ee gudaha waddankaas ayaa kor u dhaafaya 17 milyan. dadka gaara da'da ee loo ogol yahay inay ku biiri karaan ciidamada militariga ee waddanka Algeria ayaa lagu qiyaasaa in ay 600,000 ay kor u dhaafi karto sanad walba. tirada guud ee xilligan ee ciidamada militariga Algeria ayaa gaaraya 470,000 oo askari. ciidamada shaqeeya ee militariga Algeria ayaa tiradoodu ay tahay 130,000, halka ciidamada kaydka ee waddanka Algeria ay tahay 150,000 oo askari. arrintan ayaa ka dhigaysa waddanka Algeria inay ka mid yihiin wadamada ugu awoodda badan ciidamada marka loo fiiriyo dalalka qaaradda Afrika. haddaba awoodda ciidamada dhulka Algeria. ciidamada dhulka ee Algeria ayaa haysta 2024 gaadiidka dagaalka ee taangiyada loo yaqaano gaadiidka gaashaaman,
waxay haystaan ciidamada Algeria ilaa iyo 7,000 oo baabuur. madaafiicda iskaxeeya ayay ciidamada Algeria haystaan 324 madfac. madaafiicda la jiheeyo ama la jijiida ee ciidamada Algeria haystaan ayaa kor u dhaafaya ama gaaraya ilaa iyo 400. ciidamada dhulka Algeria ayaa haysta 300 oo baabuur oo ximbaara gantaalada. awoodda dhinaca ciidamada cirka waddanka Algeria guud ahaan ciidamada cirka Algeria ayaa leh 551 diyaaradood oo kala duwan. diyaaradaha dagaalka ee haystaan ciidamada cirka Algeria ayaa kor u dhaafaya 102 diyaaradood. ciidamada cirka Algeria ayaa sidoo kale leh 22 diyaaradaha oo kuwa dagaalka u diyaarsana. sidoo kale diyaaradaha xamuulka iyo gaadiidka loo isticmaali karo ee ciidamada cirka Algeria ayaa 60 diyaaradood gaaraya. diyaaradaha tababarka ee ciidamada cirka Algeria ayaa gaaraya 87 diyaaradood. ciidamada cirka ee Algeria ayaa sidoo kale haysta 9 diyaaradood oo u diyaarsan inay fuliyaan howlgallada gaarka ah. diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopterka ayay markaasi ka haystaan ee waddankaasi Algeria 268. ciidamada Algeria sidoo kale 45 diyaaradood oo nooca qumaatiga u kaca kuwaas oo ka qayb qaadan kara weerarada tooska ayay sidoo kale haystaan. haddaba kadib xayiraadii dhaqaale iyo tii cunaqabataynta hubka ee lagu soo rogay Algeria oo ay kala hogaaminayeen Faransiiska iyo Mareykanka ayaa sabab u noqotay in dalkan Algeria ay ku tiirsanaato awoodeeda gaarka si ay markaas u horumariso awoodeeda military si ay uga miro dhaliso dagaalka ay kula jirto sidoo kale kooxaha argixisada. dowladda waddankaasi ayaa horumar ku sameysay warshadeeda military si ay ugu tiirsanaato nafteeda iyadoo iskaashi la yeelatay shirkado caalami ah oo takhasus gaar ah u leh soo saarinta hubka. Algeria ayaa waxay hadda si weyn isugu dhow yihiin Turkiga oo ka gacan siinaya dhinaca teknolojiyadda ciidanka si gaar ah diyaaradaha daroonada oo markaasi si weyn uga faa'iideen. waxa ugu dambeyn dalkan Carbeed ee dhaca jiha ahaan waqooyiga Afrika Algeria ay soo saarteen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. talabadan ayaa loo arkaa soo ifbaxa dal kale oo ka soo dhex muuqanaya awoodaha military ee dunida hadda ka jira. ciidanka qaranka Algeria wuxuu ka kooban yahay dhammaan laamaha military ee hubeysan oo kalaha ciidamada dhulka, kuwa cirka iyo sidoo kale kuwa badda oo ay leedahay dalkan Algeria. ciidanka Algeria ayaa hadda kaalinta labaad ka galay awoodaha dunida Carabta. ciidanka Algeria waxay ka qayb qaateen howlo dhowr oo rayid ah iyo sidoo kale mid ciidan leh. Algeria sidoo kale waxay leedahay warshada wax soo saarka iyo sidoo kale hagaajinta qalabka militariga. warshad military oo Algeria u soo saarta gawaarida gaashaaman taasoo sidoo kale rakibta isla marhaantana dayactir ku sameysa mashiinada dagaalka sida taangiyada iyo gawaarida gaashaaman iyo horumarintooda, taasoo ka badbaadinaysa Algeria in ay taangiyadeeda u dirto wadamada warshadaha horumaray leh. sidoo kale waxay hormarisaa oo ay dhoofisaa qalab military oo ay dhowr wadan oo Carbeed iyo Afrikaan ay u dhoofiso. waxay kaloo ku qalabeysan tahay dhammaan awoodaha wax soo saarka gawaarida sida gaadiidka gaashaaman, taangiyada, diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo maraakiibta yaryar ee dagaalka. Algeria ayaa sidoo kale waxay soo saartaa dhammaan baahideeda hubka fudfudud iyo kan dhexe sida Kalashnikov, qoryaha loo yaqaan BKM, Dragunov, RPG 7, toogtayaasha RPG 9, miinooyinka ka hortaga taangiyada, dharka xabadaha celiya. miisaaniyadda wasaaradda difaaca Algeria ayaa dhaaftay 13 bilyan oo dollar, waana miisaaniyadda ugu weyn ee waqooyiga Afrika, waxaana ay tilmaan dhaba u tahay rabitaanka xooggan ee Algeria ee ku aadan inay awood military oo muuqatay ka noqoto guud ahaan qaaradda Afrika. dalka waddankaasi Algeria ayaa cadowgooda koobaad u arka Faransiiska oo dalkan soo gumaystay. sidoo kale Morocco iyo Yahuuda ayay u arkaan in ay cadow ku yihiin ammaanka iyo sidoo kale horumarka waddankaasi Algeria. waxayse Algeria saaxiib la tahay wadamada awoodda leh sida Shiinaha, Ruushka iyo sidoo kale waddankaasi Turkiga. inkastoo Algeria hadda aysan ku furnayn dagaalo toos ah, haddana waxaa saaran cunaqabataynta reer galbeedka oo ay Faransiiska iyo sidoo kale Mareykanka horkacayaan. waxa ugu horeeya ay xilligan doonayaan waxay tahay inay ka hoos baxaan dalalka reer galbeedka isla mar ahaantaana ay yeeshaan awood isku filan si lamida dalalka kale ay saaxiibada yihiin oo uu Turkigu ugu horeeyo. barnaamijkeena istiraha militariga maalintii koobaad intaas ayaan kusoo gabagabay doonaa insha Allah. barnaamijka lamid ah ku kulmi doona waxaan idinka tagayaa sida ay nabadgelyo.